الله ملا يمغلا ملا يمغلا ما يمغلا يدان ما يمغلا يسان هلو 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 أصحابتا فيديو كان إيشار قراية شرط يوقو قبط شرط يوقو قبطة هلو 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 وعليكم السلام يا أصحابتا يسي وضا الشير قراية مهما waxaa jirto cajiiba oo Soomaalidu inay wada yaqaanaan uma maleynaayo dad bay gaar u tahay dadkaas dadka ma aragtay aan anigu ka soo jeedo maamadu waxaayow waxa la yiri run aan la sheegin ma ahan ratid dameerka raad qurxoon run aan la sheegin ma ahan ratid dameerka raad qurxoon saa la socotaan bashalay waxaan ku soo qoray Facebook-gayga waan iska daayay inaan ka hadlo ii sheeg arrimo hadii wax dhacaan hadii ma aragtay wax qaldan jiraan hadii ma aragtay dulmi jiro waan ka gaabsaday inaan iska daayo ayaan go'aansaday mar hore dameer iyo nin wadana dayma iga deeqdo waa anigi lahaa waxba BK ha ii soo dhigdhiginina luuqa dadka ii soo diraayay oo ma aragtay ayagu markaa ujeedadooda ka hadlo BK waxaan idin sheegayaa aniga wax badan aan social media ka hadlay wax badan aan arrimo aniga i quseeyo ama problemi aniga ila soo dirsay aan ka hadlay wixii markii de aad aragto inay waxba ka soo naas cadaaneen ama aan waxba iska bedelaynin ama hadii aad dulmigaada soo dad lagu haayo ama aad lagu dulminaayo inay Soomaalidu sidiisu u yaala tahay markaan ogaaday family-gayga ay ma aragtay dhowr mar ila hadleen oo igu dhaheen dulmiga waa nacabta waa ku ognahay laakiin qof la yaqaanaa tahay dadku si qaldan ay ku arkayaan wallahi waayaan dambe inaan iska gaabsadaan go'aansaday go'aanka ma aragtay familkaygana tala aan ka qaatay go'aan aan gaarana uu ahay laakiin hal mid aan ka soo kacisay waxaa la ii soo diray video muuqaal la ii soo diray hadda aan idin soo share gareeyay oo YouTube-ka ku jiro waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inta aan la dejin in aad inta aan laga saarin in aad degsataan oo ifbaari u degsado muuqaalkaas waa waraysi wiil ayaa la waraysanayaa waa Nairobi nin wari ah waraysanaayo muuqaalkaas markii la ii soo diro wiilka la waraysanaayo aniga naftirkayga magac dhabay oo meeshii isoo geliyay arrinta la waraysanayo soo dhexgeliyay ani ahaan waa wax mar hore dhacay oo hadda aniga arrinta ma taagnayn laakiin sheeko ku keenay Soomaaliyay muuqaalka markaan daawaday waxa ii soo baxay in aan wax ay Soomaalidu ama Kenya ha joogeen oo ogaal ayagu ha sii ahaadaanba ama Kenya ha joogeen dibadda ha joogeen wax ay Soomaalidu wada og tahay oo aysan ka hadlin dulmi ay Soomaalidu wada og tahay oo aysan ka hadlin oo aysan ka dacwin inuu jiro waxaan wax sii soconaya ay tahay markaan arkay damiirkaygu siin waayay inaan ka aamuso maadaama aniga magacaygana meesha ku jiro oo arrin hadda ka hor dhacday oo aniga igu dhacday oo ninka sheekeynayay walaalayaalow
aniga 2014 kii Nairobi tagay waa markii ugu horreysay Afrika aado 3 bilood aan dhalana 3 bilood wiilkayga dalmar ah 3 bilood uu jiray waa marka aan Nairobi tagaayo oo aan Dubai inta taga hadana xamar aan sii tagi doono 2014 kii show ayaa meeshaas ma aragtay ka dhagsaday Nairobi wiila dhalinyaro ah oo walaalahay ah oo walaalaheen ah oo reer kilinka shanaad ah oo laakiin Kenya jooga Kenya degan dhalinyarada oo OLNF ayaa isoo raadiso fariin iyo soo farto tiri waa inaan farxiyo kulana inta aysan showga aysan dhagsan ama aysan qaban qaabsan maxay igala kulmaayaan markaan ahayna waxa la raalli ahada waxay kugu haystaan ninkii ahaan jiray kilinka shanaad madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar barnaamijkii uu leeyahay ayaad ka heestay marka inaad la kulanto waay waxaan iri ma intaas ay ugu haystaan ha hadaan ugu weligay ma caayinaan ku iri hees caayina ma qaadin marka ayagana aan isma naqaano waxaan kala kulmaaya ma aqaano adigu arintii loo sheegay gabar saasay tiriyaa leeyri way soo raadiyeen waxay dhahan ama inala kulmaysaa waa may showga ka kansalayna okay anigoo is abaabulay qarsha isgaliyay oo siiska meesha la dhahayo ayaan tagay oo booliiska wiilal kale oo ayagana meesha degan oo qaarkood suju yihiin qaarkoodna CID hina ama aragtay la ii keenay oo isla familkooda wiilashan kale isku wada family yihiin nimankaas ay caawinayay meesha hoolkan soo qabsaday meesha oo CISkan tagay waxaan soo qabsaday ciidan badan aan dalbaday si aan difaac u galo showgina inaan dhigtay iga go'an tahay adigu inaan nimankaas rag ah ay caawiyay iyo wiil CID-da iyo ah markaan soo abaabulon showgi hoolka soo qabsaday oo wax walba aan soo qabsaday way ogaadeen inaan ma aragtay iga go'antaa showga inaan dhigto ayagana inaan la kulmo aan rabin waxna kama sanaynaan taagnaa ka bacdi waxay sameeyeen wiilashi waxay u tageen magacaas ii saxa hebelow xaaji Yusuf Xaaji ninka MB-ga ah isliye u tageen waxay dhaheen gabaraa joogta magaaladan fanaanad ah waana qof maarta dagaal lagu jirto anaga dadka cadawgeena ah u heestaa heesa anaga nala ku dulminaaya qaadaa show way u timid nala kulanaan dhahna way diiday showgaas dagaala ka dhici doono showgaas inaad aas safety ahaan dadaan leen doona ayadana dad ay wadataa waa inaan kansashaa adigu showgaygi 5 galabnimo aan la kansalay 5 galabnimo wax aan qaban kara male ciidan wax sheegi kara ma aragtay lama hadli karo ma dhigto show waa kansalmay showgi sidii ku kansalmay exactly sida BK ku dhacday wiilashi ayaga ahaa waxaan ku aansaday inaan baxoon Dubai ka bacdina xamar laga soo celiyo wax ku dhac waa maqalnay iska soo gudub waxaan iri Dubai aan tagaa waa imaana inta aanan bixin way isi soo aruursadeen haddana 30 ay ka yareen way yimaadeen waxay dheen farxiyoy adigana waa madax adag tahay annaguna kaamaana xishoon gabar laashayna ha tahay oo mul ah Soomaalidu marka qabiilay ma aragtay qabiilka waxa la yiraahday wax isku ahaashaa Soomaalidu isku xeeriyaanay waxay dhaheen farxiyoy ina xataa ehelnahay waa ogaanay hooyada curadkeeda inuu ma aragtay familkeena yahay waa la ceeboobay raalli ahaw waxaan ka rabnaa inaadan bixin adoo Nairobi show ka dhigan waxaan ku iri walaalayaal oo aday saas tahay markii hore aad qasaariseen oo fanaana marka ugu horeyso hadii show laga kansala marka la ogtihiin in ma aragtay dadka ay niyad jabayaan sidoo hore u noqoneen waxaan ku iri ma iga deysaan maya okay maxaa ii samayn kartaan maxaad igu caawin kartaan waxay dhaheen anagu qarashan kugu caawinay qarashki ka baxay kuma celin karnaa inaan ku soo camirno oo show ku galno aan kugu caawinayna waan ku fasaxna dhigo adiga dhalinyaro badan aan la tashay oo aniga ay caawinayso ehel iyo qaraabo iska dhigay idheen waa dhagsaday 300 oo soo gashay because waa show fashilmay adigu wiilasha ka bacdi waa sii baranayo waa wada hadalnayo markastaan aan ma aragtay kaftami jirno intii ay weerarka ugu hayeen xataa dhowr mar aan la kaftamo dhahay walaalayaalo aniga meel cid laha igala qaadeen meel cid laha iga dulminaysiin timihiinuna isku gees uma xirmaan aniga dadka joogay Minneapolis oo aan lafti idinka jaalidiin xagga joogto ayaa igu tiri waa israacno waa heshiino waxa soo dhamaaday kaala farxiyo kilinka dawlad deegaanka u haysta marka aan waxaan ku haystay inaad hal dhinac wada tihiin marka idinka hadda saana ileediin maya walaal way ku qaldan mid kastaba cilad buu ii sheegtay farxiyo dad gumaysi ku jiraan anaga ninkaas waa qiyaanoole wadanka dadka jooga Itoobiya waa la dhibaateeyaa anaga hooyooyinkeen walaalaheen ma soo arki karno meeshaanan galib soo dooranay marka anaga waxaan naga go'an fanaanka Soomaaliyeed waa inuu naga xishoodaa maadaama jabhad dagaal ku jirta aan nahay in aad cadawgeena u heestaan
ma rabno intaasaan kugu haysanay haday saastaan ku dhahay walay qaldee dhexdiina dambe iguma arkaysaane waa idinka dhaxbaxaya labadiina dhinacba idinkana waliga idin ma haysan idin ma heesayo ayagana dib dib uguma heesayo intaas amaan ku heli karaa yeesay dhahan adigu wiilasha cabaaran kaftan xataa waxaan ku idinka ina xamar tagtaan iyo rajo kama qabtaan yaa idinka dadka meeshaan ma aragto u sheeganaaye waxay dhaheen walaal saas ma ahna qalad naga fahmin in qabiil ma aragto inaad noo aragto ma rabno wiilasha dhalinyaro badan aan isdhex galnay oo isbaranay wiilashaas waxaa ka mid ah Yurub oo loo yaqaan Hooya Cabdi Fataax Jarmal oo jooga Germany ninka la yiraahdo Yurub hadda jigjig inuu joogaan jeclahay Cabdi Fataaxna wuxuu joogaa Cabdi Fataax Jarmal wuxuu joogaa Canada sheekadu waa la soo dhaafay 2014kii ahayd waxa aniga iga dambeysay marka fanaan kasto oo wax ka tirsanayaan Nairobi markuu yimaado in uu ayaga arko fanaaniin badan baa iga dambeysay Hodan Cabdiraxmaan waati ayada laga salay rabay oo hees ku qaaday ilaa heshiisay ka bacay showga dhigtay Yurub Kenya waati iska laabatay jaq uga dhigeen dalmar waa kii hadda tagay dalmar kulli meel kale oo marmaray walaalkiisna meesha waxbuu ka yahay adigu wiilasha dhalinyarada ah ee jabhada waxa lagu yaqaanay ay fanaanka ayaga ay xarashka u hayaan oo dambiyo naga galay ay leeyihiin inay ugaarsadaan taasna waa loogu daraabayo aniga naftirkaygu qiil baan ku siiyay oo waxaan iri waxaad ugaarsanaysan waa fanaaniin idinka dambi idinka gashay waa la gartay sheekadii sida isaga ahayd waaga Axmed Rashiid ma joogin 2014 Axmed Rashiid imaaday Axmed Rashiid waa Soomaali haddana Kenyaan ah waa nin shaqo meesha u jooga hawlo kale iyo loo ogimaday inuu wadankaas magaaladaas amnigeeda ka shaqeeyo oo wixii ciyaalkii ma aragtay dadka tooreeda galgalinayay shaqadaas Axmed Rashiid meesha u yimid ilaahay wuxuu qadaray 2017kii aan ku laabtay Nairobi markaan tagay show waxaan rabay New Year 2017 inaan ka tumo 2017 aan New Year inaan ka tumo waxaan maqlay marka intaanan bixin in uu u socday Nairobi ilka casi hadalkayga si fiican u dhageysta New Year oo rabaha lagu yiri anigu sidaydaba fanaaniinta inaan ka wareegsadaan jeclaan noloshayda fanaan show kama daba dhagsan aanon ilka casi waxba la hadlin oo waxba weydiin marka la ii sheegay inuu New Year rabo gaban ka dhahay 10 December aan dhagsaday hooyaday iyo wiilkaygana waan waday showgii markaan saa u dhagsaday Axmed Rashiidna waa la sheegay akhbaartiisa Axmed Rashiidna u tag iska wargali inuu amnigaaga habeenka showga uu sugo Axmed Rashiid aan u tagay intaan bashowga dhicin waxaan ku iri aboowe saasa jirto okay waa yiri abay soo dhawow showgaaga dhagso garabkaagan taaganahay showgii markaan dhagsaday isla wiilashi ayaa soo raadiyay waa alla balama waa ii yimideen waxay dhaheen farxiyo waxaan kugu nimid hay haddana ma iskeentay inaan dhahay waxay dhaheen waxaan kugu nimid waxaan maqalnay inaad Nairobi showba u imaano familkaaga aad u timid hooyada iyo cunugaaga kula socdeen oo arrin family aad u timid oo showba u imaan dalmar iyo waxa isku dhacsanaa ilka case hadaa xusuusataan inuu dalmar lacag ku soo diro kuugu dhaliyay inaad show dhigato hool asugu kuu kireeyay si aad ilka case u baloogto waxaan ku yiraahdaa daba dhageysta walaalayaal oo dan kale leedihiin meeshaan ina ii sheegataan rabtaan hadda ka horna waa ii sheegateen social media soo ma gelin idin ma dhaleecayn waxyaabo badan baan xeerinay waxaan ku iri arintaas ma jirto dalmarna isma maqlin hoolna iima kireyn dalmar ilka casan dhexdooda ima deeqda ayaga laba nin raga ah walaalayaal maxay taa sheekadan awadan asaga nugu yireedeen waxaan ku iri haduu xataa idin ku dhaho ma soo aadaysiin maxaa laba fanaan dhexdooda idinka galay haddaadan qabyaalad iyo xumaan wadinina nimay waxaan ku iri mid kale ilka casan xamar waan la kaftamay waxaan ku iri ilka casan xamar u socdaan maqlee ma ka baqaay miyahan ku iri haduu hadda idinka soo diray anna inaan xamar aan uga hormaro oo aan revenge sameeyon ka aarsado way kaceen madax imaamadiga saareen ma yeedhin farxiyo wili qabyaalad inaan noo fahamto ma rabno haday saa tahay aadan sheekaas bari ka tahay oo showgayguna waa 10 December aan dartiisan uga baaqday New Year raalli ah way dhaheen waa iga tageen Axmed Rashiid aan ku laabtay marka ila meel lagaaga awood badan yahay xogay hadda ka horna lagu jiljalay waa cabsahe Axmed Rashiid waxaan ku iri Axmed Rashiid wiilashan walaalaheena inay ma aragtay adan qashadana laga yaabay arintaydu waa dhag Soomaha 2014kii ay galeen haddana waa soo laabteen oo ilka casi sheeka aan shuqul ku lahayn bay sheegeen wuxuu yiri waxba kugu ma dhacayaan shuqulna kuma laha showgaaga anaad already timid anaa goheerka ku siiyay abay baashal Axmed Rashiid garabkaygu istaagay showga historiga ah ee Nairobi iga dhacay ninkii suurta galiyo ahaa wixii aniga dambeeyay walaalayaal waxa bilowday fanaan kasta oo Nairobi aadayo in fanaaniinta kale ay qishsiyaan ama dadkuba ay la taliyaan ay dhahaan niyo hadaa Nairobi socotid nimanka ayaga ah joogay Axmed Rashiid raadso si uu ku protect gareeyo maxay noqotay marka Axmed Rashiid
shaqadiisu waxay ahayd oo wadanka u joogay inuu amniga ka shaqeeyo ilmaha saqajaanada oo dadka ka dhiciyo waxay noqotay Axmed Rashiid fanaan kasta inuu Axmed Rashiid u tago oo yiraahdo walaal yaa laga caawinaya marka oo laga ilaalinaya cid kale laga ilaalinayo wiilasha walaalahayna laga ilaalinaya cid kale ma aha okay haba ahaato fanaaniinta marka waxa la isku ogaa marka fanaaniinta ayaga ay eeda ka tirsanayaan ama Cabdiilay u heeseen ay dhahayeen oo markaas ayagu xarash in loo haayo u maleeyo inay Axmed Rashiid ku dabagabadaan oo dhahnaa heesaan raba meeshan xarash laga haayo caawi taas la isku ogaa oo aan kulligan ku ogeyn arinta ayada ahayd sida la wada ogyahay way soo dhamaatay dhalinyaradii jabhadda ah say u badan yihiin wadankii aadid waxay aadeen jigjiga dhinaca oo Yurub uu ku maqan yahay Cabdi Fataax Jarmalna Canada uu galay inta kale iyo qayb dhowra baxday qayb baa hartay oo meesha hadda joogta waxa kamid ah wiilka video-ga soo dubay oo la wareysanayo hadda aan daawado oo magacaygu meesha soo galiyay aan leeyahay waa la joogay sheekadii marka waxay iska noqotay maadaama filimkii Onlef iyo Cabdiilay uu soo xirmay oo Onlef xarootay oo aaday ii sheekooyinka shanaad fanaaniinta dhan sayfay dareemeen inaan wax dambe oo fanaan loo raacanayo sheekadaas oo iska soo dhamaatay dadkii heshiiyeen oo fanaan kasta uu arkay still in kastoo ay cabsidi jirtay laakiin ayagii waxay mashruuc ka dhigteen wiilasha walaalahay ahaa in ay fanaanki imaanayaba oo ayaga soo maro kilibkan waxaan u duubayaa video-ga aan daawaday wiilka waa la wareysanaya igaarka cad oo ilkaha cascas nin wariyaha wareysanayo wuxuu yiri BK laga wareysanayay iyo qaabka showga loo kansalay wuxuu dhahay magaalada Nairobi dadka qaarba meel baa u xiran qaar baa saboorada iyo fiisooyinka wixii dawladda laga dhameeyay u xiran qaarna waxa u xiran fanaaniinta imaanayso ayaa u xiran oo siyaasad noocaas ah jirto dhalinyaro is aruursatay oo dhahay oo Soomaaliyeed oo aan qabiilna lahayn oo isku dhafa ayaa jirto oo fanaan markuu imaanayo Nairobi loos inay soo maraan arintaas waa been dhalinyaro is aruursatay oo Soomaali ka kooban oo qabiil kasta leh oo Nairobi fanaan Soomaaliyeed u fadhida oo ayaga la soo marayo ma jirto waa only wiilasha ayaga ah oo isku familka ah taas been buu ka sheegay walaalkay maanta waa adduun birina waa aakhiro wuxuu yiri dhalinyaro Soomaaliyeed oo qabiil kasta leh ayaa jirta oo meeshan ay u xiran tahay xagga fanaan markuu imaanaya arintaas waa arintii soo kicisay wuxuu kale yiri farxiye kaba yaraa wadankan timid iyo dalmar iyo caqabaday la kulmeen wuxuu kale u dhahay hadda ka hor baa Yurubgeey inta timid ayadoon heesin noqotay oo waan u diidnay wuxuu yiri BK wuxuu yiri markaan dhahnay maadnala kulantid wuxuu yiri BK aniga arintayda idinkoo kala ma gashaan laba dawladood baa arintayda ay qusaysaa Nairobi idima daba fariisanaya inaan Soomaalidu joogto u heeso marka waxaan soo xusuustay oo dhahay gabar baa hadda ka hor inta show in laga kansalay iyo la isku khilaafnay oo kuwii ayada difaacay ee annagi isku khilaafnay baa loo tagay Yuusuf Xaaji markaasuu wuxuu yiri gabaraa show la rabaa in laga kansalo markaasuu yiri dhoocin xun oo foodleeyo fanaanada waxa rabtiin ka yeela okay walaalayaalow waxa jira qofka bini aadanka waa inuu waxyaabo badan xeeriyo aniga waaga ayada oo showga laga kansalaayo Xasan Gantaal oo yar uu yaraa Xasan Gantaal hadduu kacay oo dheeraadu weynaad waa wiil yar Xasan Gantaal ayaga uu ka tirsanaa in kastuu san ku jirin kuwii tooska ii soo weeraray laakiin dhalinyaradu uu ka tirsanaa uuna u heesi jiray I think inuu dhaantad u qaabilsanaa laakiin wuu la socdo markay ii imaanayaan oo laygu meeraysanayo wuu la socday 2019 ka hadda xamaran tagay show aan ku lahaa showgayga 2 bilood la xayeysiinay Xasan Gantaal waa kii iga daba yimid markuu iga daba yimid social media soo galgalay dhalinyaro xamar joogta video ka duubeen xamar lagaama xigo show waa dhigan kartaa kaba yara ku diidayso xamar iyo waxba la rabay in la geliyo aniga marka anoo dumara oo gabar ah fitmada dumarnimo waa abuuri karay garbasaarka intaan tuurto waa dhihi karay been oo dhan intaan daldalo oo Xasan Gantaal ka dhigo nimankii waagi iga kansalay uu groupka uu ku jiray laakiin waxba iima geysan ani waaga waliba wiilka la yiraahdo Yurub iyo Fataax Jarmal aad bay igu dhawaayeen waxay dhigi jireen inaad haysto walaal anagu waa jecelnahay laakiin guddi baa jiro madax baan leenahay madaxdaas oo ku fasaxin anagu waxba kuma qaban karna laakiin abaayo wallahi farxiyo waa ku jecelahay kuma nicbin laakiin xaaladahan waxaan hadda ka qaban karna male ururkana waa ka tirsanahay marka 10 qofood ama 3 qofood ay ku soo weerarto 3 qof ama 4 qof oo ku naxariisata lama waayo
marka meeninkaygu wuxuu yahay xasan gantaal maadaama xamar uu iiga daba yimid suuqana aan ka cabsaday inuu ii geliyo farxiya xamar igu cunsuriyeynaysa intaan adeegsado cadiifadii 2014kii garbasaarka intaan tuurto xamar oo aan is oohisiiyo aan dhihi karay ninkaanu hadda kor oo Nairobi soo iga kansalay oo awood ii sheegtay iyo qabiil haddana xamar igu dhibaataynaya ma samaynin maxaan sameeyay Europe Facebook igu jira Europe waan xiriirnaa qooyaca u taqaani reekeeya Europe aan la xiriiray aftax safaarigeena Minneapolis oo Nairobi joogan la xiriiray aftax Jarmal oo jooga meesha la yiraahdo Canada la xiriiray Suldaan Seeraaran la xiriiray Xariir Axmed aan la xiriiray kaasanadiisa leen ku wada dacweeyay oo irulaalayaal image-kaygu ku ciyaaraya wuxuu rabaa inuu dadka ii tuso intuu show iga daba dhagsaday markaan iraahdo maxaad iga daba dhagsanaysaa inuu dadka colaad ii tuso oo image qaldan iyo farxiya xamar ii sheeganayso علشان سمعتيدنا وان إلاليناي إنا ويلكا ولالك إنتا سوكالي إنا حمر أني كحيقو إنا تصنع مربين كمان يحيقو حمر وعاصمة الصومالية أساسا آمن سنة لكن مركا ينقطو إنا عذير إيو واحد قرادة كودا سفيني وكازا نذيدا مدى أتشرت مركا ولا لا مصنين حسا قنتال وقوغا وإيمت مركا دبواتان هشيني وان قربها إسيسما إلا يديني لأو يقلصو هياسي مركا وحيابا بدنو اللي حيريات جيرا مدى أتشرت مركا ولا ليالو فرين بان halkan ka diraya mid waa dacwo dhalinyaradaas aniga oo matalay dhammaan Soomaalida Kenya joogto especially Nairobi aanoo u hadlaaya ayaan dacwo ka nahay haddaan nahay reer Soomaaliya especially reer Muqdisho fanaan dhan xaga eedig dhalinyarada Muqdisho ka imaatay ee Nairobi dhooban reer Nairobi dhan waa ogyihiin laakiin qof Nairobi jooga hadli kara ma jiro dhalinyarada Nairobi joogto ee Muqdisho ka timid ee xabada iyo qaraxa ka soo carartay Nairobi kuma joogan niyad sami cabsi ay ku joogan qof markay isku dhacaan ayaga ah waa ku xira ama adeerkaya wax aha loogu hanjabaa dhibaatadaas way jirtaa in ma aragta dadka Soomaaliyeed ay Nairobi waa qurbo waxay ku yihiin magangaliye u soo raadsadeen inay ayaga iyo dadka Soomaaliya ka yimid iyo wiilasheenan killinka ka yimid inay u sinaadaan way xaqu hadii aad Kenya aad baarta dhan ka deganto adi ilmaadeerada degan yihiin adayba ahayd inaad dadka soo dhaweyso oo reer Soomaaliya oo dhan aad hormuud u noqotid oo aad dhibaatada ka ilaalisid oo aad isu heshataan waxaan weydiinayaa walaalkay marka wiilka Cabdiraxmaan ee fiidiyowga la wareysanayo Cabdiraxmaan waxa tiri farxiye kaba yaraa timid dalmaraa yimid fanaaniin badan baa meeshan caqabad kala kulmay dhalinyaran haddaan dhalinyaranahayna waxaan u qaabilsanahay fanaanka imaanaya inuu anagana soo maro أبو معانو إلهن كقول لاريا ولالك يا تهي الويل الصومالية يا تهي وحن كويدينا أذيك يا كوحل صار إن أذلك صومرو أحمد رشيد إنه فنان كمرو وأوكي صوت أمرا إنه تقانين أحمد رشيد عبسي أياك الله قباب الله مرابا أحمد رشيد عدك كما ورديه بفنانين فنانين عدك أحمد رشيد كما ورديه أياك الله ورديه أرجع ولا له هذا الله ورديه مي فهمتين أوكي walaalkay su'aalan ku weydiina adiga yaa ku igmaday yaas adiga ku doortay fanaanki imaanayo Kenya Nairobi in uu idinka idin soo maro su'aashaas kama jawaabi kariyo maxaa ka tahay Nairobi adigu ma nin madaxa tahay ma ii sheeg ma business kala meesha ka socdo oo fanaaniinta waxa la weydiinaa taxi oo dawladda adigu tahay ma tihid fanaankaas wuxuu u baahan yahay oo kaliya waa inuu dawladda isku soo register gareeyaa Kenya inuu show ka dhigaayo wadanka dadka iska leh iyo أحمد رشيد أو صومالي ذا والوالن شوف فنانك وسيف ودريمه صومالي ذا هذا الدجال يبوك كدرين لهاين شوقة يهدي فنانك وعد جاره راتسنيس وكعب سنة إنه أحمد رشيد وقرب كيس تاجنا أنت شوف فنانك وبهايه فنانك ومركا وحكوك اللي فاي أما كوقص باي إنه إذا كان صامره أبوه يجي شوال صدق الله جربا وحكوا صهري واجي شوقة هذه تنسليسين وحان waxaad igu tirahdeen farxiyo dad gumaysi ku jiraan waana lagu qalday kalinkana dawladda kama jirtay kii ugu xumaayay gumaysi ugu xumaayay hadda galay marka gumaysi inaad noo soo raacdo adoo gabar walaashan oo Soomaaliyeed oo calankii buluuga ah naga dhaxeeyo oo Soomaalinimadii dhiig naga dhaxeeyo ayaan diidanahay oo calool xumaan idin haynaa fanaaniintiina kalinka sanaad u heesayso waxaad ka cabanayseen walaalaheeyo waa idin jeclahay waxaad ka cabanayseen gumaysigu ahaa gumaysina waad naga badisaan oo xanuunkiisa idinka yaqaan idinkoo gumaysi xanuunkiisa yaqaan ilaahan idinku dhaariyay inaad Nairobi ku gumaysataan Soomaalida joogto hadduu fanaan yahay iyo hadduusan fanaan ahaynba oo Soomaaliya yahay soo cararay oo magangalay soo doontay inaad ku gumaysataan
محقبة أدو جميسي كعرّ جميسي وحلو يهيقان إن أدو ولالك الصومالية تسيب جميسي محقبة حق معه وغلط وحاكو صهر عن فرين ودراية for example أنيقا وحن آمن سنة هي سومالي لانتن أنك الله لادنو أن مالي إلهي كان الله يعينينو إيا مقدسو لبدا وح أن كسور تجلين أيا كين سومالي تشوك كسور تجلا أو كبرعو أنيقا مانتا هدي أن حمر تجو حمر كل شو أنت مقصود لك هذا وماشان كفانا صوما دولتنا ريدنا ومانتا كل وحماشة وحكاه تلاقي عيدا ويا كلي وأنا هيبتي ده صوما اللي ذيك قبيل اللي ذيك كرواي فنانا نحرس أهايو أما هكي ما دو سومالي لان أما هكي ما ذا كلن كي هدي أن فنانا حرس أهايو أنا حمر تشوق إنتو يمادو أنا بحو أنا عفتح شاوي أطقو أمان صادقتهم أطقون أنكو إرادون نكاس إن الشوق إيجا كان سشان ربع أنا حرس أهايو ما كده فكارينا ليها بح وهذا بدرنت هاي وحي ذيك كده حيان لكن لقوما كان صلاة فنان سومالي هذا مقدشة إمادي سأصل لي لها يا وعكوسو هرجيسة ما تهدان أنا قلت dadka inta xun baa ku badan dad baa isaga kici kara dad baa fikir qaldan iga haysan kara hadii show intaan ka dhagsado hargeysan la igu dhaho qolooyinta is abaabulaan inta qaswadeennada ah ay u tagaan dawladda ay dhahan farxiye ka bayr in showga laga kansalo last minute aan rabnaa oo tii dheerad lagu dhigo dad waxa la helayaa ii soo istaaga oo dhaho saani gobonimo ma aha waa gabar waana fanaanad wax laga kansalayo ma laha laakiin nasiib darro dhalinyarada walaalahay ah ee Nairobi joogto waxa ay waxaanu dhibaato u sameynayaan waa duud waayelay ku dangiigan duudka waayelay ku dangiigan oo idin si fasiraya xayowga hadii aad fahmaynina waxay haystaan garab ilma adeeradooda madax ka ah Kenya way u tagayaan meeshaas waxaas meeshaas in la kansalaan rabnaa leeyeen hore looga kansalaan madaxda Kenya ee Soomaalida ah ee walaalaheen ah ee Kenya madaxda ka ah anigu magacyadooda ma wada aqaan hebel xaajigaas oo hadda ka hor u tagay markii shoog laga kansalay ka bacdi oo afkiisa iga yiri ana ka kansalay dagaala dhacayaan leeygu yiri ninkaas oo isli haysto adeerkaas ama abtigaas aan ka xusuustaa inta kale magacyadooda ma aqaano haday wasiir yihiin haday xildhibaan yihiin dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho ama Somaliland ama Puntland meel kasta ka yimaada ama koonfur oo dhan ka yimaada ee Nairobi degan ee Nairobi jooga xil baa idin ka saaran xil ayaa idin ka saaran gumaysi dadban oo qaab darana meesha ka socdo haddaan idin xusuusiyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo reer Muqdisho ah ayaa waxay dhiganayeen sanad guura nabad iyo nolol ah maxaa samayseen ilaahan idinku dhaariyay inta tooreeye la gasheen aad nabad iyo nolol anaga wasno fash dadku ma ilaawin boogna inaan soo faarfaara ma rabo wiilashan walaalahay ah waa wiilal umada Soomaaliyeed qabiilada Soomaaliyeed qabiil kamida ay yihiin qabiilka ay wiilashaas yihiin waa dadka kaliya sanad ka soo jeeda 15 maray wax yihiin walaalahay oo habriyaalahay dhaloona dhana ah abtiyaashay hooyaday ku hooyaha ah curadka hooyadayba ah ay idin ma quuro xumaan idin ma quuro idin mana caynaayo laakiin runtu waa laga maraystaan annagu waxaan ku mahmaahnaa haddaan nahay ii sheeg dadka koonfurdega oo waliba xayowga ah run aan la sheegin maahane rati dameerka raad qurxoon run aan la sheegin maahane rati dameerka raad qurxoon may maqlaysaan waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan taas uga baxaya tukala iyo daba taale wiilashaas walaalaheen ah mar dacwan aan ka nahay aanoo matalaayo Soomaalida Kenya joogto oo dhan mar dacwan ka nahay oo madaxda Kenya joogto ee Soomaaliya oo dhan meesha u joogto haday dhibaato ku dhacdo lambar 1 wiilashaas dacwo looga yahay in amaan laga helo ninka la yiraahdo Axmed Rashiid aniga intuu ii saaran yahay halkaas because waa ninka kali aan habeenka si fiican ma iska raaxaysan kartaa la igu dhahay ninku iman kara ma lahani waxa Axmed Rashiid fanaaniinta u maraana wiilasha walaalaheena yaryar ee dheer ee cadcad ee ilkaha cascas waay marka walaalow markaan runta ku sheego kilika shanaada ka timid Nairobi magangaliyaad u timid waagi hore hadda kilika waa ku shidan yahay magangaliyaad u timideen dadka xamar ka yimid ama Somaliland ama meeshay rabaan ka yimaadaan la meesha qurban nacas waayo ayaga naftirkooda qaxooti bay ku yihiin marka waxa aad dheertiin oo kaliya waa in ilma adeeradin meesha madax ka yihiin qabiilkiina u badan yahay marka soo ceeb ma ahan meeshaan iscaawin lahayn inaan isguumeysano soo ceeb ma aha okay arrintaas laga waantooba dhalinyaradaasna si wada jir ah loo wada dacweeyo waan ka baxaya waxaan ka rabaa inaan wax yar ka hadlo arrinta BK iyo reer Muqdisho
وحيران ربا إن الريم قدر حسوسية وحير أدون كان ولا جت جاية ما أنت وأدون برينا وآخره نيكل اللي هذا بيكي سيدا ضدك أنت عقلك أو صاحبك أيوجيهن فيسبوك بهذا كورة اللي غفرتها وحيل ربا لقى شيء أوكي وعنصرية اللي يري حمر نحبنا كحيجا هنا بيكي واكي هذا كور هذا يري حتى فيسبوك مليه لكن شبكي صومالي ده ولا جليه من اللي جليه هذا مركز الشوق اللي كان صلي بيكي مركز ما حد عاد بيكي لا مرة شوق اللي كان صلي ويلش أساك كان صلي مركز اللي كان صلينا فيسبوك ورنو إسقاط صدي دقشو صومالي محيط هذا مدينك كوجلية يا كساك كوجيرا كحنون بدن كساك كوجيرا حنون بدن maxaa dhacay markuu BK tagay Somaliland inuu dhaho Muqdisho barteeda iga joogto inta kale halkooda dollar iga badan hadalku la mid yahay idin sheegaa marka haday xusuusto idin ku yartahay aniga dhowr mar ayaan waxaan ka hadlay arrimaha Somaliland waxyaabaha ka dhaco fanaaniinta xidigaha geeska Muqdisho hadda kor lagu xiray si adagaan uga hadlay reer Somaliland inta aqliga u saaxiibka ah suula iyo wada saareen inta qaswadeennada ahna waxay icaynayeen sanadan أنا بكور قلين أما أنا رسول مالن فكس في عنصارين أما أنا على وشود وحي قلان يوحي قدان أنا بارين أنت حمان تودي بكورة بحية عينها هي قذادو أنت يقول هاي أيام عقدة يركا قاضي وحناق وحيردت كان وعنصريين واسكت أدعيه منه because مالك استيسوا عيان مالين بقى أنا كرمال ملك من يابلس كتشوجا هبي خليفة صارقني هذا اللي ير أو كروليسي أها أيام به فرحيب أدان تور آدين إنهم كراعوا واي أنت آدنا أنت هرجيسة هنا الله هوي فنك واي والله ده لكن أنا ما أجي إنه يجين هوي فنك مو سعتي ما تجاي هرجيسة ولا ليالو أدي تعلى لك إني مصر صعود أدوك أنا السكورة إيه لو أنا إيقا صار سان مربي شغل كان صار أنا كمان بيحكروا ولا تشوقي أنت يا ريت وطيها دنا حناقي عقد الله يوقاضي أنا نيروبي تشوق وحن إسأرقنا إجلان صالح ويجور رئيس تعرنتها واتان si waadax uga hadlan tahay walaalahay waa kululeysanayeen xogaayar way kuruleeyeen ana waa kululeysanay BK hadalkii aniga iga soo baxay iyo hadalkiisu waa isku mid qofka walaalkaaya marka aad ku digato marka aad ma aragtay aad tiraahdo oo kugu macdahay oo qasaarana uu gaari dad walaalihiis Soomaaliyeena ay xumeeyeen waxa dhan uu israacinaya Muqdishona gaar uu leeyahay hay dhaafto because meesha ugu badan ee looga diganay reer Muqdisho ahaayeen reer Muqdisho oo dhanna ma ahanay عيد كستا أما سوماليلاند أما بوتلاند أما مقدشو أما نيروبي مال كستا سوماليو تشوكتو أنت حن على أركا because way أفدريين أنت قصور ذي نضع أنت ضدك كلا جيسة أنت قشنك كوبضن مرك أنت قشنك هيدو أركي ونا حناقي وأنا بالآذن الملائك معه مرك هذا الكبيك يحول لمدي هاي أنا جو بهر جيسة نتجايدي الله محا كدم بي إن عن ضدك ولا عليه هاي عن مو تجايو مرة إن عن صفي عن أبرته أصحاب بدنا كلها بشارع علي بانطي سجل مصطفى حسن نوري قبل بدنا يكمدين إيه أصحاب بدنا ويل الله فيسبوك يقولون أنت بدنا يسود ما أركت يقنع عيسى هذا ولا المكن نبعين فرحية لصعوا مركا أركضت كإني النظيفين وأنا علم كوده هو ذي because أقونا أنا مركا هرقولها ينبروا يا شيء علم كوده وأنا هو ذا وهالشيء ذات كهل كان كتير كي يسوق قرايو إن أرجيس هربتا أنا أرجيسك سو هستارتا هرت ميدا يدي شيء إيجار رالي هذا قف قصودينا يسوي إذا جيسته ميدا يدي شيء هرت أنا فن هدي اللي هذا فنان كوجو إسكور هذا بدن باناهي مالا إسكور يقول الملاها هرجيسة كوسو هرتي هدان ربع هرجيسة وكهيسة هدان ربع كم هيسة هوا بودات هدان ربع أنت تجان فكيش وتجان إسكدجة فنك أشياء جيسان بديك واحد الله أنا وجبان فنك كأهي بكو شرف ملاها فنك صومالي شرف ملاها وحكوسو هري فنانين تماشى بروبلم كوجي مدن بأيجا مسؤولك أنيجا بقول دور بعد دباتين يقول عين ومشوا يلا يجا كان سلام اللي دباتي أنا فيسبوك قايلنا يولي وأركيسين ولي ما أركتن هالفنان أما أنكلوس أهانو أما يعني إسقون فنان ما يقول اللي فرحية محصل الله يلا هاي مشلو فنان كاستمر كل دباتي فنانين تكلم باركين يجلين سيد إني عدو كيهنا كفر حيان عمل فنانين الصوماليات هذا فن كان رجك الربطان أنا أقول رجك مرة ربي هذا فن كان رجك الربطان اسكت بنادا فنان كستنا ماشو تقشك أو يوحو كلا كلمة فنان كذا قشكي ساسيو بيك يوحنا في لايا مركو هذا نيروبي تجي أحمد رشيد موسى مرين أحمد رشيد وحلوقة قبضة وويرشة ولا لهن ما في عمل ولا قمايو عد كله أو عدوة والله جاء إلى لنا يكين يمشرتو ويرشة ولا لهن عدة يدوران يسجد لجا وفنانين تقارصة وح أحمد رشيد الله مربين تقول وين ويرشة كبد بادو
marka axmed rashiidna waxaan filayaa ninka la yidhahdo bk inuusan axmed rashiid marin wixii dhacay hadda way dhaceen waxaan u sheegayaa reer muqdisho arrinta bk ee muqdisho meesheeda iga joogta ah waa taydii oo kale iyo hargeyso uma soo socdo marka lagu gaarsiiyo laga badbadiyo lagu gaarsiiyana waa dhehe marka dadka yaan la kala geyn Soomaalida yaan la isku dirin wiilasha walaalaheen ahna wixii ehela ee ma aragtay garan kara ee qaban kara ee fahmi kara inay naga qabtaan rabnaa dawladda Kenya dadka noogu jiro ee ma aragtay madaxda ahna waa idin bariyaa fariintayda hal la gaarsiiyo wiilashaas shacab ahaan iyo fanaaniinta Soomaaliyeedba waa inay amaan ballaaran ka helaan haddii aysan sameynaynin Soomahan hal mid fanaaniintan kula talinaya Kenya haddaadan wiilasha yar u naagaynaynin oo aadan ayaga aadan dhahaynin please Kenya ma ka heesi karaa walaalow ha isku tagin haddii kale u gooya Kenya meel kala ka badan meel laga heesaa ka badan yuusan fanaan tagin haddii kale maxaa dhacay in ayaga u naagayso aniga iyo bk isku mid aan ahayn anigu waxaan iri idin lama kulmaayo bk wuxuu yiri idin ma aqaano maxaa dhacay in fanaanka la dhibaatay soo ma okay marka labadii ka u door leh inaad ku jirtaan bahdilkaas oo aad marka Nairobi tagaysaan wiilasha yar walaalaheen dhuudhuubana dheer cad eelka cascas inaad ma aragtay ayaga aad u naagaysaan oo aad dhahdaan in iga raali ah ama ay ma aragtay ay ku qasaan haddaad raali ka tahayna Axmed Rashiid aad maray Axmed Rashiid ku ooyee showgu waa dhigay haddii kalena dadnimo isticmaalo waxaad kansalaysiin kansala aniga idin ma naagaynaayo dhah iskuna duubnaado fanaan marka la xumeeyo gees uga soo wada jeesta wiilasha walaalahay ahna su'aashi aan weydiiyay ka soo jawaabaan yaa idin doortay fanaanka Nairobi imaanaya inuu idinka idin soo maro dawlad ma tihiin oo wadanka dawladda iska lahayd iyo Kenyaan ma tihiin xataa Soomaalida dawladda ku jirtay ma tihiin askar ma tihiin ilaaha idin ku dhaariyay waxaas oo ma aragtay cuqdad ah iyo waxaas aad dad ku beeraysan sheekan soo xusuustay wiilba hadda koor wuxuu ugu yiri Nairobi anoo jooga ayagoo dhibaaya dhalinyarada reer Muqdisho dhalinyarada Soomaaliya ayagoo dhibaaya hadda koor wiil wuxuu yiri niyo maalin kasta waan xirtaan oo adeerkaya askari balaad noogu faantaan waan dhibaataysan inaad xamar iyo Soomaaliya tagtaan rajo kama qabtiin miya oo agah maxaa iga jira ay dhaheen wiilashi saalaha laba kamid oo hadalka tiri waxaan maqlay inay soo tahriibeen Mexico San Diego meelahan ay ku xirnaan jireen oo dadkii la celiyay ahaayeen toos xamar laga dejiyay asay iska baroorteen xamar maad imaanaysaa ma waliga is iriba xamar maad imaanaysaa miyaan is iri haye adduunku meel ma jiro gacan la barkan doono Ilaahay baa ogay Soomaalidu dhahan marka nin shukaansaayaan cid loo martin doono lama oga Kenyadaas aad dadka ka xigsanaysaan ee aad dadka walaalihiina gumaysi idinka naga yaqaano naga badiye dadka walaalihiina gumaysanaysiin oo aad xumeynaysiin shacab iyo fanaan waxay doonaan ahaadaane oo aad ka xigsanaysaan Kenya anytime ma balaaya ka dhici kartaa oo Soomaaliya dhan ma naqaan la dhihi karaa asaad xamar isku shubi kartiin iyo Somaliland iyo meel kasta Soomaaliya joogto marka godob ha gelinina xarash dadka kala dhex dhiginina wiilasha walaalahay ah ee reer walaalkay ah curudka hooyaday ayaan wali iyo abtiyaasha iyo kaasanadayda aan wali ku xeerinaa reer walaalkayow Soomaalida Kenya joogta ee walaalihiina ee qurbana aska joogta ee Muqdisho ka timid especially Muqdisho ka timid wiilasha yar aad ugu hanjalaysan waa ku xiraa iyo ku yeela waa is ogtihiin arqaf Kenya jooga sax waa soo qor waa cabsaha hore laga xiraa dadka Kenya jooga hadda sax ma ii soo qori karaan abursanaan baa ka jirta waa loo sheeganayaa meesha marka walaalayaal waxaas waa ceeb waxaas waa Soomaali kala geys cid la mudan doonana Ilaahay baa og waa idin baryaaya wiilasha walaalahay ah waa idin nasteexaynaya waxa ka waantooba oo iska daaya waana idinka dacwoonaynaa inta daawanaysa iyo intii u leh inay la xiriirto madaxda Kenya wiilasha walaalaheena dadka laga qabto bkayna reer Muqdisho ka calool fayoobaada ninka aniga waxaan iriyo kale u buuyiri Soomaa waana gaarsiiseen inta xuna gaarsiisay waa la gaarsiiyay qofka xumaan lama gaarsiiyo mideeda kale adigu hadii hadda lagu yiraahdo farxiyo way ku nacab tahay oo adigu aad daacad ka tood oo adiga aad jeceshay daacad ka tahay ma isoo jiidanayna soo ifogeynay bk cunsuri waaya leeru idin nacab yahay leeyi bk waa fanaan fankiisana aad u jeceshiin fanaan kasto Muqdisho ka soo jeeda bk ka jeceshiin marka bk ma gacaltooya la tusaa oo la soo jiidana ma soo wala fogeynaa oo dhibaatadiisa lagu digana dad waaweynatin aqligan cidiha isaga gurnana loo masin waxa ku soo haray wiilasha walaalahay mid kale ugu daraaya ilaahan idin ku dhaariyay Suldaan Seeraar iyo Xariir Axmed waa walaaladin ilma adeeradin oo kaligsanaad ka soo jeeday ma ku xeerin weysan sidii loo soo dhaweeyay bk marka inta daba dhigateen aad mar kansasheen mar labaad kansasheen
suldaan seerar iyo ma ku xeerin weydeen ninka la yiraahdo xariir axmed ma ku xeerin weydeen waxba ma xeerinaysaan soo ma shuqul maafiyo anagu nairobi aan joognaa maafiya na isbaara noo taala miya walaalayaal ilaahay ka cabsada maanta waa adduun birin waa aakhira waran fan danka malihi anytime any minute aan ka baxaya dhowr 10 sano soo heesooya adduunka meelaan tagina malaha marka waa idin salaamaya inta samaha jecel kor Allah ka dhigo ummadda Soomaaliyeed boggeeda burcad Allah isu mariyo dadka isku diraayana ilaahay dadka ka qabto oo qasoodeynada ah waa idin salaamaya waa idin jeclahay bye bye